shantan arrimood aan kula wadaagi doono. Weligaa qof ha la sheergareynin, weligaa qof ha u sheegin, qof kale ha la wadaagin. Qofkuu doona ha noqdo, saaxiib kuu dhow ama qaybaha familigaba. Waayo haddii aad la sheergareysid waad ka welweli doontaa, waad ka shalay doontaa. Qaybtii labaad, waxaan filayaa fiidiyoogii hore inaad soo daawatay. Haddii aad soo daawanna waad soo daawan kartaa. Soo dhow mar labaad. qaybtii labaad, weligaa qofna ha u sheegin, cidday doonta ha noqoto, ceebahaaga iyo meelahaad ka liidato. Waayo dadka oo dhan ma wada ahin saaxiibo runa. Asxaabtinimaduna waa ta ku dhisan run, walaalnimo, kalgacal iyo isgargaarsi, iyo in la isgarab joogsado waqtiga farxadda iyo waqtiga dhibaatadaba. Haddaba kama dhigno qofku inuu ogaado sirahaaga oo dhan, ceebahaaga oo dhan iyo meelahaad ka liidato. Dadka waxaa jira dad ku wanaagsan matalaadda inay matalaan inay saaxiibkaa yihiin, hadafkooguna ahaa say kuu dhaawici lahaayeen, kadibna isku dayaya sirahaaga oo dhan iyo ceebahaaga oo dhan iyo meelahaad ka liidatid. Maalintay ogaadaanna waxay isku dayayaan inay adeegsadaan ama ay kugu dhaawacaan. Labada dhaawac aan laga soo kami karin, ta koowaad ayay ka mid tahay. Dhaawaca cadowga uu kugu dhifto waad ka soo kami kartaa, waayo meeshaad ka dhimanaysid ama meeshaad ka xanuunsanaysid ama ceebahaaga ama sirahaaga ma ogo. Laakiin saaxiibkaagu maalinta uu inuu adeegsado uu isku dayo, wuxuu u adeegsanayaa meesha aad ka liidatid ama aad ka dhiman kartid. Haddaba nabigu sallallahu alayhi wasallam isagana wuxuu nagu waaniyey, qofka aad jeceshahay u jeclow si dhexdhexaad ah, waayo waxaa dhici karta maalin inuu isbedelo uu noqdo cadowgaaga. Isla sidoo kale qofka aad neceb tahay ama aad u cadhoonaysid, u cadhoo ama ugu xanaaqsanow si dhexdhexaada, waayo maalin waxaa dhici karta inuu noqdo saaxiibkaaga. Adduunyaduna ma sugna way isbedeshaa. Imise ayaa asxaabna la ahayd, maantana cadowgeena. Imisaa kolkii hore cadow noo ahayd, maantana asxaabteena. Isla sidoo kale waxaa la dhahaa qofka cadowgaaga ah hal mar iska ilaali, ama iska fogee, ama iska ilaali inuunu kusoo gaalin. Qofka saaxiibkaana 1000 jeer iska ilaali in ka badan inta cadowgaaga, waayo waxaa dhici karta maalmaha ka mid ah inuu adeegsado sirahaaga uu garanayo ama meelahaad ka liidatid. Isla sidoo kale waxaa la dhahaa qofka ha u sheekaynin meelaha aad ka xanuunsatid, waayo wuxuu kaaga isticmaali doonaa isla meelaha aad ka xanuunsatid. Meelaha aad ka oydid ama waxyaabaha kaa oohiyena qofka ha uga sheekaynin. Isla maalintuu rabo inuu kaa cadhaysiiyo ama inuu kaa oohiyena isla kuyo ayuu isticmaalayaa. Hadalkayga waxaan kusoo gunaanadayaa ama aan kusoo gabagabeynayaa, sirahaagu adiga ayay kuu gaar yihiin, ceebahaagu adiga ayay kuu gaar yihiin, meelahaad ka liidatana adiga ayay kuu gaar yihiin. Qofkana waxaa muhiim ah inaad xad yeelatid. Dhaqanka Soomaalida qofka marka la isbaranayo waxaa la iskaga horeeyaa, waxaa nacaa waxaas, waxaan ka helaa waxaas waan dhibsadaa. Waaba la isku bartaayo qofka isla markaaba gacanta ayaa laga saaraa. Waana dhaqan laga wanaagsan yahay. Beritoolana waxaad arkaysaa dadka is jiidinayo oo waxaan bay iga sheegtay, ama waxaan buu igu sameeyey, ama waxaan buu igu dhahay, ama sirtan buu iga sheegay la isleeyahay. Xanta iyo wixii la halmaalana xaggaas ayay ka yimaadiin. Waxaa kugu waaninaya sirahaagu aday kuu gaar yihiin, noloshaaduna aday kuu gaar tahay. Qofka asxaabta tihiinna xad asxaab laahow. Haddii aad is leedahay inaad wax iga faa'iiday ama ugu yaraan waxaan ku iftiimiyey, walaal anigana dhiirigeli. Subscribe-ka iyo follow-gu waxay ii yihiin dhiirigelin. Adoo mahadsan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.